ما يسكت ما هو الشعب الصومالي inkastoo dadka la beegso ani indheegu caqabanaya waxaad moodo bajaaj oo shacabka guban oo ambulance meesha ka dhaw ambulance ciidanka cilay qaraxan ayaa jugtiisa waxa laga maqlay degmooyinka Muqdisho waxaana qaraxani oo ka dhacay wadada 21 Oktoobar degmada Waaberi ee gobolka Banaadir qaraxa ayaa ahaa mid xoogan iyadoo la sheegay in noociisa uu ahaa gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa gaariga laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa waxa la sheegay in lagu horjaray gawaarida UN-ka leeyahay iyadoo qasare dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaareen ciidamadii saarneed sidoo kale dad shacab ah ayaa qaraxani ku dhintay halka kuwa kale ay ku dhaawacmeen wiil goob jooge uu ahaa goobta uu qarax ka dhacay ayaana la wadaagay waxa uu arkay ma isku dhamaado waa shacab Soomaaliyeed inkastoo dadka la beegso ani indheegu caqabanaya waxaad moodo bajaaj oo shacabka guban oo ambulance meesha ka dhaw ambulance ciidanka cilay idina matina waxa uu baraya inuu qabuurto ilaahay uu waasiyo wixii ku dhaawacmay ilaahay u booyay laakiin meesha waxa ku dhamaado waa shacab ma wala horta ani indheegu waxa qabanayeen hilbageeda laga soo dejinayo ibileen korontada saaran imee dhulka daadsan wax u gurmada iyo waxan maxaato ودقدقة ضد يرس حقا مودب كدمينا موجي أنت كله شعب ماشي كده ماذا إلى وحى وبرنا أنت لمتينا وإلى ونعريستو ولا أرت قاري سوى كم شيء لكن قرح وحوها إلى حالك سوقيا إلى حالك سوقيا إلى حالك سوقيا وحقر حصلوق ماذا ودليرت وشعبك تدموت بجاس الدحوف صارن أم بيشو يكونوا بحميشو كوكبتكو جماري هلبي كذا سسارين كرونتين كفيلين سسارين هلبي قفدن جيحيس waxa laga soo dejiyay koronto korkeeda waxaas waxa ka codsanayna dawladeena Soomaaliyeed inay waxaas wax weyn ka qabato wax dhamaana waa dhalinyarteeni intii maanta wax soo barada hadii qarax iyo xabad bilaa loo beegsado Muqdisho amnigeeda ayaa laga deerinayaa iyadoo sidoo kale la soo sheegayo in magaalada Muqdisho bari la filayo in barnaamijyo ay ka dhacaan amniga ayaana ah mid cakiran iyadoo waxyeelo ay ka soo gaari karto shacabka